Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran yool 24 kusoo dhawaada casharkeena maanta. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida Trust Wallet loo samaysto. Trust Wallet waa application kuu sahlaya inaad lacag dhigato website-da maalgashiga kuna shaqeeya Tronka, Tether-ka, Bitcoin-ka iyo neerka lacagaha crypto-ha oo dhan ayaa ku jira, kuwaas oo aad marka aad soo samayso lacagna aad ku soo shuban karto, lacagna aad kula bixi karto. Waan jeclaa inaan Trust Wallet sida loo sameeyo aan screen-kan ku duubo, balse marka aad Trust Wallet application-kiisa la soo degto ee aad soo gasho, marka aad application-ka la soo degto ee aad soo gasho, isla markaaba wuxuu kuu furmayaa isagoo aan waxba ku weydiin. Waxa uu ku siinayaa magacyo yaryar oo isku daba xiga, kuwaas oo kadib aad koobiyeysanayso oo u dhigma password-kii aad ku galaysay. Meel ayaad dhiganaysaa waayo waa password-kaagii, kadib next ayaad odhanaysaa. Kadib marka aad next tiraahdo, magacyadii aad koobiyeysatay ayaa sida iskugu xigeen ayaad u qoraysaa. Kadib intaa kadib sidan ayuu kuugu soo furmayaa wajhadan. Haddaba wajhadan sidan oo dhan haddii aanay kuugu furnayn, halkan ayaad tegaysaa. Kolba kaad u baahan tahay, haddii aad Tron u baahan tahay xagga sare aad ku qoraysaa oo saas oo kale ayaad wax furanaysaa. Kolba kaad u baahan tahay Sweet Wallet oo kale haddii aad u baahan tahay, halkan ayuu ku jiraa. San ayaad u furan kartaa, waad xiran kartaa. Neer aad u baahan tahay, halkan ayuu ku jiraa isagoo badan. Dhammaan lacagaha crypto-ha ku shaqeeya ee suuqa crypto-ha ku jira oo dhan ayaa ku jira. Marka lacag aad doonayso inaad ku shubato qaybtan Tronka, waxaad ku soo shuban kartaa lacag $3 ah, imkaaniya $2 ayaa igu jirta. Qaybtan Tether-ka ay ku qoran tahay oo ah qaybta USDT-ga oo markasta aad lacagta kaga maalgashan karto website-da, iyadana waxa aad ku soo shuban kartaa lacag $10 ah, waxaana kuu bixi karta lacag $5 haddii kugu jirto. Tanna sidoo kale lacag $5 waad ka saaran kartaa. Markaas hadda waxaan doonayaa inaan Tronka lacag soo dhigto. Qaabka aan u soo dhiganayo ayaa aan gudageli doonaa. Lacag soo dhigto Tronka oo aan ka soo dhigto Perfect Money-ga lacagtii iigu jirtay, waxa aan soo raacaysaa linkiga yaalla description-ka, kaasoo ku qoran yahay exchange app ay ku qoran tahay. Sidan ayuu kuugu furmayaa markaad taabato. Kadib qaybtan ayuu kuu soo saaraya wajhada sana. Wajhada markuu kuu soo saaro, halkan ayaad gelinaysaa ugu horeysa. Halkan ugu horeysa ayaad gelinaysaa Perfect Money-gaaga iyo halka aad u dirayso lacagta aad diraysana halkan ayaad gelinaysaa. Lacagta kuu baxaysa isaga halkan kugu sheegaya. Tanna waxa aad gelinaysaa meesha aad lacagta u dirayso. Halkan marka imika waxaan soo gelinayaa Perfect Money-gayga, sana ayaan ugu dhufanayaa. Kadib marka saa ugu dhufto, halkan BM ayaan ku qorayaa oo Perfect Money loo soo gaabiyey. Kadib waxaan tegayaa qaybta ugu hooseysa oo ah $, qaybtan kalena waa euro. Marka haddii lacag euro aad diraysana halkan ayaad ku dhufan kartaa. Marka Perfect Money ayaan ku dhufanayaa. Kadib marka aan ku dhufto, kadib oo kala Perfect Money ayaa ii soo galay. Halkan waxaan gelinayaa lacagta aan ka soo dirayo Perfect Money-ga. Halkan waxaan gelinayaa USDT-ga oo halkan u dirayo Tether-ka. Marka halkan ayaan ka dooranayaa Tether-ka. Ka koowaad waa euro, kan kale waa euro, kana waa USDT. Marka euro waxa lagu kala garan karaa ka euro 20 weeyaan, kana waa TRC ayaa ku qoran 20. Marka kana ku dhufanaysaa. Kan marka aad ku dhufato, halkan waxa aad ku qoraysaa lacagta aad soo dirayso. Marka hadda waxaan soo diranayaa oo ku shubanayaa lacag $3 ah oo iigu jirta Perfect Money-gayga. Marka $3 aan soo dirayo waxa ii gelaysaa $2.78. Lacagtaas ayuu sarifku iga goosanayaa exchange app-kani. Marka halkan ayaan ku dhufanayaa. Halkan waxa aan gelinayaa meesha aan u dirayo. Marka meesha aan u dirayaa waxa weeye USDT Tether. Marka waxaan tegayaa Trust Wallet-kaygii ayaan ku noqonayaa. Markaan Trust Wallet-ka u soo galo ee logga ka saaro, waxaan tegayaa ka Tether ay ku qoran tahay USDT oo imika ku jirto lacag $1.97. Kadib markaan saa ugu dhufto, halkan ayaan ku dhufanayaa. Marka receive ayaan leeyahay. Receive markaan idhaahdo, markaan lacag soo diranayo aan ku soo gashanayo receive baan leeyahay. Lacagta receive way ku save garaysmaysaa. Marka aan saan leeyahayna waa markaan lacag diranayo ee aan ka saaranayo.
marka iminka lacag ayaan kusoo shubanayna, halkan ayaan copy leenahay, linkigan ayaan copyna, linkiga waa linkiga halkan ku jira, waa linkigan halkan ku qoran, linkiga halkan ku qoran baa halkan ku jira. markaan copy raa kadib waxaan toos ugu noqonayaa sariflihii exchange ay ku qornayd app. marka exchange app halkaas sare waxaan gelinayaa linkiga aan soo koobiyey oo aan basti ku leeyahay. markaan basti ku idhaahdo sana ayaan ugu basti garaynayaa. halkan waxaan gelinayaa gmailkayga perfect moneyga, waayo gmailka waan qarinayaa. markaa gmailkayga geliyo, halkaas yar ayaan tig leeyahay. markaan tig idhaahdo halkanna waxaan taabanayaa tig kale. markaan aan tig idhaahdo kadib wuxuu igu leeyahay perfect money, lacagtaas ma kasoo diraysaa oo intaa kuugu soo baxaysa. kadib halkan waxaad gelinaysaa koodhiska yar ee halkaas sare ku yaala. marka waa koodhiska ayaan qorayaa. koodhiska marka aan geliyo waxaan leeyahay tig ayaan haddana odhanayaa submit data ayaan odhanayaa, macnaha datadan waan dhamaystiray. waxaan eegayaa lacagtii inay taadarka soo gashay, taa lacagtiina soo gashay. markaa halkan tronka $2 noogu jira, taadarkana $4 ayaa noogu jira. transwaledka qaabkaas ayaa lacagta lagu soo shubtaa. casharo badan oo transwaledkana lagu shubanayo oo la maalgashanayana waa soo wada insha Allah. website la maalgashanayo oo lacagta lagaga dhiganayo transwaled ayaa insha Allah aan soo gudbin doonaa. asxaabta intaan telegramka soo biirin, telegramka kusoo biira. cashirka maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.